dhowr maalmood ka hor ayuu dhintay wiilkeedii yaraa. walwal badan ayaa haystaa. khaanadan ayay furaysaa waxayna kala soo baxaysaa mindi, kadibna waxay kasoo baxaysaa guriga. gaarigeeda ayay soo fuushay waxayna soconaysaa wadadan cidlada ah, kadibna waxay usoo dhaqaaqday dhankaas iyo buuraha. aad ayay ugu murugaysan tahay maadaama wiilkeedii oo 3 sano jiray uu dhintay. halkan ayay ugu dambayn timi waxayna ku baakimanaysaa gaariga halkan, kadibna gaariga ayay kasoo degtay iyadoo fiirinaysa kaynta ka horeysa. buurahan aadka u dhaadheer ayay soo dhex qaadaysaa ilaa markii dambe ay kortay xagga ugu sareysa ee buurta. qabriga wiilkeedii yaraa ayay dul tegaysaa, kadibna waxay ku qoraysaa magaca ilaa markii dambe ay sawirkiisii dul dhigtay. dhimashada wiilkeedii darteed ayay u murugaysan tahay ilaa markii dambe ay go'aansatay inay isdisho, iyada doonaysa inay buurta iska tuurto. noloshii oo dhan ayaa ku adkaatay, mana doonaysa inay sii noolaato. sikadiisa ninkan ayaa ugu yimi, waxa uuna ku leeyahay magacayga waxaa la Richard. waxa uuna dareemay inay doonaysa inay isdisho, kadibna waxa uu ku leeyahay ila hadal intaadan isdilin ka hor. qiso ayuu uga sheekeynaya, waxa uuna ku leeyahay wiil ayaa waxa uu jeclaa gabar, si aad ayuu u jeclaa, laakiin ugu dambayn maalin maalmaha ka mid ayay u dhimatay si fool xun. kadibna waxa uu isku dayay inuu isdilo, laakiin waxa uu xasuustay faamilkiisii oo ka dambeeya murugada ay dareemi doonaan ilaa markii dambe uu ka tanaasulay. sheekadii markii uu dhimay ayuu ku yidhi waa istuuri kartaa, waana maasanta waa uu kasii tegay, laakiin markiiba walwal ayaa u bilaabmay ilaa markii dambe ay soo daba gashay. waxa ayna raacday talada uu ninkan siiyey, si wada jir ayay uga soo baxeen kayntii ilaa markii dambe ay yimaadeen gawaaridoodii. Iris waa u mahadcelinaysaa, waxay ku leedahay waa ku maasan tahay inaad badbaadisay. gaariga ayay soo gelaysaa laakiin daaqadii ayay furweynaysaa ilaa markii dambe uu arkay ninkan, kadibna waxa uu ku yidhi aniga ayaa ku caawinaya. gadaal ayuu kasoo maray isagoo gacanta ku sitaa birtan idiin muuqata ilaa markii dambe uu soo dhawaaday. sheeko yar ayuu qabtay laakiin ugu dambeyn waa uu kusoo booday, kadibna waxa uu caloosha kaga dhejinaya korontadan. dhulka ayay ku dhacday, waa ayna suuxday ilaa markii dambe uu gaarigiisii soo saartay iyadoo gacmaha iyo lugaha ka xiran. waa ay yaaban tahay, waxayna is weydiinaysaa sababta uu ninkan usoo kaxaystay. saacadeeda ayay xasuusatay Iris, kadibna waxay isku dayaysaa inay ninkeedii wacdo, laakiin halkani khad kama shaqeeyo. waa uu ku qoslaya, waxauna ku leeyahay cidiga ka badbaadinaysa ma jirto. nasiib wanaag Iris waxa ay soo xasuusatay mindidii ee hadda ay jeebka soo gashatay, kadibna waxay la soo baxaysaa mindidii iyadoo ninkiina u sheekaynaysaa. si tartiib ayay xarigiis kaga furaysaa, laakiin ninkani ma dareensana waxa xagga dambe ka socda. ugu dambeyn markii xarigiis ka furtay waa ay kusoo booday, waa uu iska qabtay gaarigiina waxa uu wareejinayaa shukaanta ilaa markii dambe gaarigii uu shilkan galay. kadib markii uu ku dhacay geedkan idiin muuqda, labadoodiiba ilbaabka daaqada ayay iska fureen, waxayna kasoo baxeen si isku mid ah gaarigii. Iris afka ayay dhulka ku haysaa, waxayna doonaysaa inay halkan ka baxsato. si tartiib ayay isaga furtay xargihii lugaha kaga xirnaa, kadibna mindideeda ayay la soo baxday, waxayna ku leedahay ii soo dhowaan, laakiin waa uu ku qoslaya, waxa uu ku leeyahay 20 daqiiqo oo keliya ayaa haysataa, waxaana jirkaaga ku duray irbad sun ah. 20 daqiiqo kadibna ma awoodi doontid inaad istaagtid, waxaa ku dhacaysaa dhulka. ka carar meesha ayuu ku leeyahay, isbadbaadi 20 daqiiqo oo keliya ayaa haysataa. irbadii ayuu jeebka kasoo saaraya, waa uuna tusaya. waa ay rumaysatay ninkan waxa uu sheegayo, waa ay soo carartay, waxayna doonaysaa 20 daqiiqo kadib inay isbadbaadiso. kayntii ayay afka soo saartay iyadoo aad u ordaysaa, waxayna doonaysaa inay ninkan ka baxsato, laakiin ma taqaana jihada iyo meesha laga xigo, mana garanaysaa xagga ay ku badbaadi doonto gabadhani. halkan ayay kusoo dhuumanaysaa, gacmaheedii waa uu isbedelay, waxaana kusoo baxday suntii. saacadda ayay fiirinaysaa, waxayna ilaashanaysaa 20 daqiiqo, waxayna isku dayaysaa in 20 daqiiqo gudahood kaynta uga baxdo, laakiin tabartii oo dhan waa ay ka dhamaatay, waxayna isku dayaysaa inay socoto. suntiina waxa ay ka qabatay labada lugood, lug kamid ayay jiidaysaa ilaa markii dambe ay dhulka ku dhacday. halka ninkii dilaaga ahaa uu badigoobayo, waxauna ku kalsoon yahay inaysan gabadhan ka baxsan doonin. halkan ayay ku dhuumatay, laakiin korkeeda ayuu soo istaagaya isagoo raadinaya, balse Iris waxay isku celinaysaa naqaska. kadibna quraanjo ayaa wejigeeda soo fuulaysaa, waa ay qaninaysaa quraanjadii, laakiin waxay adkaysanaysaa xanuunka, balse waa ay xamil weday ilaa markii dambe afka qaylo ku shubatay. waxa uu gartay meeshii ay joogto, waana uu kusoo dhaqaaqay, laakiin markiiba biyahan webiga ayay isku tuuraysaa. biyihii ayaa qaaday Iris, waxayna doonaysaa inay ka baxsato halkan si ay u gaadho gebiga kale ee webiga. jirkeedii oo dhan waa uu istaagay, xubin ka mid a jirkeeduna ma shaqaynayso. dhammaan xubnihii jirkeeda oo dhanna waa ay istaageen, waxayna joojiyeen shaqadii. biyaha ayaa wadaa, waxayna doonaysaa inay istaagto gebiga kale ee webiga. ugu dambeyn Iris waxay kasoo baxday biyihii iyadoo aad u tabcaan ah. 20 daqiiqana waxaa ka dhiman 4 daqiiqo oo keliya. ma istaagi karta, waxa ay kusoo siqaysaa labada gacmood, laakiin nasiib darro saacadii halkan ayay kaga dhamaatay. kadibna xubin jirkeeda kamid a ma qaadi karto aan ka ahayn indhaha. isla markiiba gadaasheeda ayaa waxaa soo istaagay ninkan beeraleyda, gaarigiisana wataa. waa uu imaanaya, waa uuna fiirinaya gabadhii, waa uu la yaabaya xaalada gabadhan ay ku sugan tahay. Iris waxay kala hadlaysaa ninkan indhaha. su-aasha uu weydiiyey waxay uga jawaabaysaa indhaha. haddii ay 2 jeer indhaha isku qabato micnaheedu waxa ay tahay in waxa uu sheegaya ay ku raacday. ugu dambeyn odaygu waa uu fahmay in gabadhan ay xaalad aad u daran ay haysato, waxauna isku dayaya inuu meesha ka kaxeeyo ilaa markii dambe uu soo qaatay gaari gacankan. kadibna waxa uu soo saaraya gabadhi isagoo u wada xaafadiisii. gurigiisa ayuu keenay, waxauna doonayaa inuu gabadhan si fiican u daweeyo, laakiin nasiib darro qof ayaa ilbaabka soo qarqaraacaya, waa isku naxaysaa markiiba. kadibna indhaha ayay kala hadlaysaa, waxay ku leedahay ilbaabka ha furin. isla markiiba odaygii waa uu dareemay in halkan cabsi ka jirto, gabadhan ay diidan tahay inuu ilbaabka furo,
laakiin markiiba odaygii waxa uu dhaqaaqay ilbaabka isla markiiba odaygii waxa uu furay ilbaabka waxauna ka furay Richard oo doonayay gabadhii Iris ahayd soo gal ayuu ku yiri guriga kadibna waxa uu soo galay Richard gurigii kadibna waxa uu fiirfiirinayay gabadhii Iris ahayd isagoo arkay gaariyoolka halkan yaala odaygii waa uu soo dhawaanaya waxa uu isku dayay inuu la sheekaysto waxa uu ku leeyahay maxaa doonaysay laakiin waxa uu sheegay inuu doonayo gabar lagu magacaabo Iris taasi oo ahayd xaaskiisii oo aad u jeclaa waxa uu ku leeyahay waa xanuunsan tahay waxay qabtaa xanuun maskaxda waxaana igaga soo dhexluntay kayntan aadka u weyn odaygii waa uu dareensan yahay xaaladda ninkan uu ku sugan yahay iyo waxa uu doonayo halka Iris ay ka daawanayso halkan isla markiiba odaygii waxa uu ku oranayaa booliiska ayaan wacaynaa laakiin waa uu diidaya ilaa markii dambe odaygii telefoonkan soo qaatay isla markiiba Richard waa uu kacaya waxauna ka hortagaya odaygii inuu booliiska waco odaygii ayuu kusoo booday laakiin waa uu iska qabtay kadibna waxa uu ku dullacay armaajadan bugaagta ay ku jirto telefoonka ayuu soo qabsaday waxauna isku dayay inuu booliiska waco mar kale ayuu kusoo booday Richard laakiin odaygii waa uu iska celinaya waan oo mintidaya waxauna qaraacay Richard ilaa markii dambe Richard uu helay mindidan halkan taala waa uu kusoo booday ilaa markii dambe mindi ka geliyay lugtiisii dhulka ay iskula dhaceen waxauna si foolxun odaygii caloosha ku geliyay mindi halkaas ayuuna ku dhintay odaygii soo badbaadiyay Iris xagga hoose ayay ka fiirinaysaa Iris tabarna ma haysay kaga celiso waxay aragtay Richard oo doondoonaya Richard waxa uu galay qolkan waxauna la soo baxaya bensiinkan idin muuqda kadibna gurigii oo dhan ayuu ku shubaya bensiin waxauna doonaya inuu halkan ku dilo odayga sababta uu guriga u gubayana waxay tahay inuu baabiyo raadkiisa oo dhan odaygii ayuu madaxa kaga shubay bensiin kadibna waxa uu soo qaatay dabkan isagoo ku shiday gurigii oo dhan waa uu gubanayaa laakiin Iris markiiba gacanteeda ayay soo dhaqaajisay waxayna qaraacaysaa gambaleelkan waxayna doonaysaa inaysan halkan ku dhiman iyo dabkan holaca kadibna waxay qaraacaysaa gambaleelka ilaa markii dambe uu fahmayay waxa uu soo galay guriga waxauna ka qaaday bustii Iris ayuu soo xambaaray waxauna ka soo saaray gurigii isagoo soo saaray gaarigiisii si tartiib ayuu gaarigiisii usoo dhaqaajiyay gurigii oo dhan waa uu gubanayaa Iris waxa uu soo laabtay hadalkii waxayna dhageysanaysaa waxa uu ku hadlayo ninkan gaarigan ka horeeya ayay fiirinaysaa waxayna doonaysaa inay weydiisato caawimaad si looga badbaadiyo ninkan gaarigii Richard waxa ka dhamaaday bensiinkii kadibna waxay imaanayaan kaalintan shidaalka ah Irisna gacmaheedii iyo jirkeedii oo dhan waa isku dayaysaa inay dhaqaajiso laakiin ma awoodo si degan ayay u arkaysaa wiilkan yarka kadibna waxay soo xasuusanaysaa nolosha wiilkeedii yaraa ee ka dhintay isla markiiba wiilkii yaraa hooyadiis ayaa u imaanaysa waxayna arkaysaa in gabadhan xaalad culus ku jirto kuwa ay soo fiirinaysaa mar kale halka gaariga uu kusoo laabtay Richard waxauna kusoo shubtay bensiinkiisa waa ay soo dhaqaaqeen waxayna kasoo dhaqaaqeen kaalintii waxa uu yimi gaarigiisii hore ee shilka galay kadibna gaariga ayuu kasoo degaya waxauna doonayaa inuu gaarigiisii hagaajiyo laakiin Iris waxay isku dayaysaa inay gacmaheedii dhaqaajiso nasiib wanaag waxa uu yimi ninkan booliiska ah kadibna waxa uu fiirinayaa xaaladda gabadha ay ku sugan tahay waa uuna la hadlayaa laakiin Iris ma hadli karto waxa ay u sheegtana garamaysa ilaa markii dambe codkoodii uu maqlay Richard ayaa u imaanaya ninkii booliiska waxauna ku leeyahay maxay tahay waxa halkan ka wadid waxa uu sheegay in gaarigiisa uu shil galay uuna hagaajinayo laakiin booliisku waxa uu ku yiri ii dhib kaarkaaga aqoonsiga kaarkiisa ayuu dhibaya waxa uu ku leeyahay gabadhan maxay tahay laakiin waxa uu ku leeyahay waa saaxiibtay khamri ayay ka dheragtay waayna dawaqsan tahay halka Iris isku dayaysay inay gaariga iska furto ninkii booliiska ayaa arkaya kadibna gabadhii ayuu imaanaya laakiin markiiba waxa uu sheegaysaa inay doonaysaa caawimaad ninkii booliiska gaariga ayuu soo dhawaanaya waxauna arkaya irbadan meeshan taala waxauna ogaaday in gabadhan sun lagu duray balse Richard waxa uu soo qaatay bir waxauna dilayaa ninkii booliiska ahaa bir ayuu madaxa kaga dhuftay ilaa markii dambe uu dhulka ku dhacay Irisna waxa ay fiirinaysaa ninkii booliiska waxayna ogaatay in rajadii u hartay oo dhan ay baabaaday gaarigiisa ayuu soo qaadanaya kadibna waxa ay soo fuulayaan wadada mar kale kayntan cidlada ayuu soo maraya ilaa markii dambe arkay stop halkan taala kadibna gaariga ayuu kasoo degaya Irisna markiiba waxay la soo baxday irbadan kadibna waxay isku dayaysaa inay ku durto laakiin ma awoodo irbada inay ku sii dayso awood uma laha halkan inay taabato si ay sunta u gasho ninkan kadibna waa uu ku qoslaya waxa uu ku leeyahay wax tabar ma lihid imana dili kartid aniga irbada ayuu iska soo saaraya kadibna waxa uu ka daadinaya suntii isagoo weliba aad ugu jeesjeesaya waxa uuna ku leeyahay tabar ma haysid aniga igu dishid isla markaba gaariga ayuu kasoo degaya waxa uuna kasoo saaraya Iris gaarigii way ooyeysaa waxayna ku leedahay daa laakiin ma daynayo mindi ayuu la soo baxay waxa uuna gashanaya dhabarka dambe si uu webiga dhexdiisa ugu dilo Iris ayuu soo jidaya waxa uuna rabaa in doonidan yarta uu saarto biyi ayuu la soo galaya isagoo dooni soo saaray laakiin Iris waxay aragtay Janice dhabarkiisa dambe ayay ku aragtay mindidan ku jirta wuu kusoo jeesanaya waxa uuna ku leeyahay si xun ayaa u dhimanaysaa laakiin waxay ku leedahay intaadan dilin waxa rabaa sawirka wiilkayga inay tustid laakiin hadalkeeda ma dhageysanayo ilaa markii dambe uu isku dayay inuu xaggan hoose kasoo saaro sawirka ay sheegayso markii uu sawirka ku foorarsaday ayay mindidii kala baxday kadibna waxay ka jartay dhuunta Richard dhuuntiisii oo dhan waxaa ka socotay dhiig aad u badan ilaa markii dambe uu ku dhacay isagoo baaskalood gacanta ku haya biyaha in yar kadib Richard wuxuu kusoo laabanaya doontii laakiin markiiba waxay soo qaadanaysaa baaskooladii iyadoo baaskooladii kaga dhufatay lugta xabadii labaadna waxay kaga sii dhufatay caloosha biyaha ayuu ku dhacay Irisna halkaas ayay ku badbaaday biyihii ayay kasoo dabaalanaysaa waxayna doonaysaa inay kasoo baxday webiga waa ay soo dabaalatay waxayna timi meeshii doontii ay ka qaaday dhinaceeda
ayay fiirinaysaa waxayna arkaysaa Richard oo naftu kaga bixi rabto meeshan cidlada ah. way soo dul istaagaysaa waxayna doonaysaa inay sii dhammaystirto. waa ayna dhammaystirtay Irisna halkaas ayay ku badbaaday. daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynay. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan haddii uu kusoo gaaray fadlan like saar. waa ku mahadsantihiin mar kale daawashadiina muuqaalka.